Africa iyo Asia ay yihiin wadamo qaaradaha ugu khayraadka badan haddayna taa ahayn Africa iyo Europe kuma soo duuli lahayn Soomaa sababtoo ah Europe iyo wadamada reer galbeedka aan dhaho markay galeen xilligii warshadaha oo ay ka baxeen xilliyadii dagaalka iyo burburkii seesashada hadda inaga aan marayna ay ka baxeen waxay u baahdeen laba arrimood waxay u baahdeen dhul dihin oo warshadahoodu waxa ay ku shaqeyn lahaayeen laga keeno مثلا warshadu waxay ku shaqeynayaan petrol waa in wadan petrol la helo warshadoodu waxay ku shaqeynayaan wax walba ay soo saaraan waa in la helo dhul dihin oo laga keeno wixii hadii gaar la sameeyo wixii laga sameyn lahaa diyaar la sameeyo wixii laga sameyn lahaa hadii la sameeyo bir wixii laga sameyn lahaa marka dhul dihin waa in la helo talabaad markii hadii laga soo qaado oo khayraadka adigu aad lahayd la keeno reer galbeedka oo la warshadeeyo oo laga dhigo wax la taaban karo meel loo suuq geeyana waa in la helo marka labadiiba adiga laga qaadanaya wixii kadib markii la sameeyana adan lagu soo celinaya marka buugan si ay taa u hirgasho dadku caadi in qofku ku dhaco adoo arka uu waxay ka xoogo taa qofka soo dareemi kara qofna raali kama noqonayo awood intay doonto laato laakiin waxa loo baahan yahay in lacagtaadii iyo hantidaadii iyo wixii aad lahayd la qaato adoo raali ah oo faraxsan oo waliba moodaya in adiga wax lagu qabanayo taas waxay tahay mid u baahan la qeexo John Becknis oo buugan qoray waa qofkii koobaad inta la og yahay ee hawsha intuu ka shaqeeyay asagu ka ahaa qofka ugu muhiimsan ee wadamo ay ka mid yihiin Indonesia ay ka mid yihiin Panama ay ka mid yihiin Guatemala ay ka mid yihiin Ecuador ay ka mid yihiin Sacuudiga ay ka mid yihiin Iraq wadamadaas intuu khayraadkoodii asagoo hitman ama qursaan iqtisaadi ama burcadayso ma jirto waa burcad dhaqaaleed Soomaa asagoo intuu wadamadaas tagay oo khayraadkoodii boobay oo dadkoodii dilay kadibna inta uu hawsha ka shaqeynayay dareemay taaniib damiir iyo damiirkiisu inuu siin waayo in dad masaakiin dhaqaalooda waxay kadibna qora buugan John Becknis wuxuu ku dhashay New Hampshire oo Mareykanka 1945 hooyadii waxay ahayd gabar macallimada oo luqadda Laatiinka dadka barta aabihiina wuxuu ahaa kabtan ciidamada Mareykanka kamid kadib aabihii markuu shaqada ka tagay macallimii hooyadii isugu soo biishateen labadooda macallimiin noqdeen maadaama hooyadii aabihii macallin yihiin asagu ka dhashay qoys aan dhaqaale badan lahayn maadaama labadooda macallin yihiin carruurtooda waxay heleen fursad ay si fiican wax ugu bartaan oo iskuul fiican wax ku bartaan kadib asagoo 40 jir ah gobolkii ka tagay wuxuu tagay meel kale soo waxbarashada u sii bilaabo xilligii jaamacadda uu gal lahaana wuxuu helay laba fursadood inuu dhaqaale barto iyo inuu barto sport kubad sida ciyaaraha loo maamulo inuu barto kadib talooyin xagga aabihii uga imaaday oo badan wuxuu bilaabay dhaqaalaha markuu bilaabay oo muddo socdayna oo jaamacadda uu dhiganayo jaamacadda isku barteen dad badan waxa kamid ahaa shaahi Iran xukumay wiil u dhalay waxaase kagu muhiimsan oo noloshiisa oo dhan bedelay inay isku barteen gabar wadaan oo xilligii dugsiga sare isku mid ay isku lahaayeen inta jaamacadda ay dhiganayeen isbarteen gabadhii guursaday guurka uu gabadha guursaday waa arinta noloshiisa oo dhan bedeshay sababtoo gabadha aabaheed wuxuu shaqeyn jiray NSA oo nabadgelyada qowmiga Mareykanka waxa ka shaqeeya CIA waxa ka shaqeeya FBI NCA waxa ugu hooseysa xagga maamul security nabadgelyada Mareykanka shaqeeysa gaas sargaal sare ka ahaa kadib markuu jaamacadii dhameeyay oo ciidan loo qaadanayo 65 odaygaana marka bedelay wuxuu ku soo daray NSA markuu ku soo darayna kadib wuxuu sii bartay dad kale kadibna wuxuu noqday hitman ama qursaan iqtisaadi يعني ماشي ونقول لها قف قال كسب بحو جامعتها تجا قال كشيء أما قال قرأ أما أستاذ جامعي النقطة أما عسكري عادي النقطة وهو هلي ضد سيجارة أطابرة أرنتاس ضمانتين ونقول هذا عادي محور مهمة أبوق الله من رأينا مركب ركب بلعب نيكا فانتين أرنتا أقوم مثلا بوجان عن أسوقات وحاء ما أنت لوك الصومالي ده وحلاقوا ضمان لوك الصومالي شنت الصومالي وحلاقي هذين بترول meel laga helay sida Soomaaliya iyo Soomaali galbeed iyo Kenya Soomaaliya Kenya meel kamida iyo meel raadinay
shirkadaha raadinaya ee maanta qoran waa shirkadaha uu ninkan ka soo shaqeeyay in badan oo iyaga ka mid ah uuna ka digaya maanta inay bixiyaan ahmiyadda buuggu leeyahay waxaa ka mid ah buuggu waa dhaxal bini aadan sababtoo ah inteena halkan fadhina waxaan ku dhalanay aan leenahay dhul barwaaqo ah hodan ah hadday noqoto khayraadku leeyahay khayraad hadday noqoto beero hadday noqoto bado hadday noqoto xoolo hadday noqoto meesha uu ku yaalo haddana kulli waan ka gaajaysanahay waxaan dhahay dowladda ugu faqiirsan kitaabku waa buuggii koowaad inta la og yahay soo bandhiga shirkadaha iyo hay-adaha iyo dowladaha sida ay u boobaan ama ay u dhacaan hantida dadka masaakiinta waa buuggii koowaad oo si qoto dheer ooga sheekeeya dollarka ee ogtihiin kala mooyeen kulli dad dhaqaale dhigtay jira meeshan lacagta dowladaha badan lacagtooda waxaa lagu xiraa inta ay dahab haystaan yani dowlad kasta waxay lacagteedu la eg tahay inta ay dahab haysato marka laga tago Mareykan Nixon markii batroolkii ay carabtu 22 ay shidaalkooda joojisteen oo Mareykanka dhaqaale xumo ku dhacay waxaa lagu dhawaaqay Mareykanku madaxweynahaas uu go'aan gaaray inaan loo baahnayn dollarka in lagu xiro dahab saadarteed dollarku waa warqad caadi ah oo la daabacdo yani effort aad haysato oo aad daabacdo waaye oo adduunka aad ku qasabtay in ay qaataan adduunka inuu qaato maxaa qasab ka dhigay Mareykanku markuu wax sameynayo okay waa inuu helo dadkan oo kale waa inuu helo dad u tababaran barnaamijka oo asagu raba aragtida uu rabo dad gada waxaa dollarkii lagu xiray batroolka saadarteed wadamada khaliijka batrool ma gadi karaan haddii dollar lagu gadan tusaale ahaan China markuu Sacuudi ka gadanayo batrool lacagta Chinese kama gadan karo waa inuu dollar ka gato Ingiriiska iyo Yurub markay gadanayaan batrool waa inay dollar ku gataan saadarteed waxaa petro dollar inaad maqasheen kala mooyaan wadan kasta oo adduunka ah oo gadanaya Soomaali markay gadan shidaal inay batrool dollar isticmaasho saadarteed haddii ay wadamada islaamka ama khaliijka ama ay yeeshaan awood ay yeeshaan dadnimo ay yeeshaan sharaf iyo karti ay ku dhahaan maya dollarku wuxuu noqonayaa warqad caadi ah oo warqadaha inagana sanad lacag Soomaaliya kamid wuxuu noqonayaa kitaab wuxuu u baahan tahay wax badan u baahan tahay ahmiyadda buugga uu leeyahay wax minuu ka sheekeynayo buugga 24,000 oo qof baa yoomiyan u dhinta gaajo lacagtoodii hantidooda awey shirkadaha qaata okay wuxuu leeyahay Mareykanku lacagta ha qaataan wadamada ha boobaan laakiin waxay ahayd in Mareykanku si isla eg ay uga faa'iidaan lacagtii taas ma dhicin lacagta Mareykanka taalo waxa iskala boqolkiiba hal ba iskala dadka Mareykanka lacagta Mareykanka taalo dhan laga sheekeyn doono boqolkiiba hal ee iskala 12 milyan oo qof Mareykan ku nool 2004 markuu buug soo baxay 12 milyan oo qof haddana waxuma inay marayso tirakoobka qaar 20 marayso oo faqri ah oo aan lahayn meel ay degaan oo musharridiin homeless waxay cunaan ma haystaan waxay xirnaan ma haystaan meel ay saxdaan ma haystaan oo Mareykanka kaliya 87 bilyan oo dollar wuxuu ku kharash gareeyay dagaalkii Ciraaq lacagta halfkeed waa imisa 42 bilyan oo dollar waxay adduunka ugu filan tahay dadka ku nool oo dhan inay helaan biyo nadiif ah cunto tayo leh waxbarasho fiican iyo caafimaad 87 bilyan oo dollar ee Mareykanku Ciraaq ku weeraray oo Ciraaqiyiintu leeyihiin iyo Sacuudigu leeyihiin haddii adduunka si loo helo biyo nadiif ah iyo cunto wanaagsan iyo caafimaad iyo waxbarasho waxaan u baahanahay 42 milyaar oo dollar baan u baahanahay waayahay waxaan soo sheegnay Mareykanku iyo reer galbeedka in adduunka ay boobaan boqoriyeen ugu qabtaan xoog inaga qaadaan maya corporatocracy ama al-corporatiyya carabtu dhahaan iyo multinational company labadaas arrimood Mareykanku adduunka ay ku haystaan labadaas waxa yihiin baan sheegaynaa al-corporatiyya iyo shirkad mutacadid al-jinsiyat ama multinational company corporatocracy ama corporatiyya waxa waaye waa saddex arrimood oo isgalay koow shirkadka waaweyn
waan soo sheegi doonaa tusaalaha waxaa ka mid ah shirkadaha adduunka oo dhan isaga goosha waxaa ka mid ah ugu dambeyn waxaan u maleynayaa waxaa jiri doona isbarbardhig aan ku samayn doono hadduu ilaahay yiraahdo aan ku samayn doono shirkadaha iyo dawladaha tusaale ahaan waxaan sheegi doonaa in 6 shirkadood oo adduunka ka mid ah shirkadda la King Burger oo burger kala cuna soo saarta waxay ka dhaqaale badan tahay dalka Masar oo dhan ka dhaqaale badan shirkadda la dhaho Google Somaha Google waxay ka dhaqaale badan tahay Brazil waa shirkado adduunka oo dhan ka shaqeeya waxaa ka mid ah Coca-Cola waxaa ka mid ah Nike waxaa ka mid ah Adidas waxaa ka mid ah yani shirkadaha waxa waaye markii la leeyahay shirkadu in adduunka ay uraan 6 dal 7 dal ay ka shaqeyso 3 iyo dawlado iyo bangiyada adduunka inaad maqasheen bangiga adduunka maqasheen Soomaa hay'adda lacagta adduunka waad maqasheen ma shirkada adduunka leeyahay oo dadka adduunka u dhaxeeya ma aha shirkadahaas iyo bangiyada iyo dawladaha oo wada shaqeynaya iyo waxa la corporatocracy ama al-corporatiyya maxay macnaheedu tahay shirkaduhu waa nimankii soo dejin lahaa sida qofkan miskiinka ah lacagtiisa loo cuni lahaa bangiyaduna waa lacagta ay dadka laga soo qaaday meeshii la marin lahaa lacagta dalkooda la maalgelinay meeshii la marin lahaa waa dawladahana waa dawladii sharci ahaan waxaan inuu sax yahay ogolaan lahayd tusaale ahaan saddexda marka waxa la dhahaa saddexda wax isku xiran yihiin madaxweynaha bangiga adduunka wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka shirkadaha mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn Mareykanka ninka madaxweynaha ka ah wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka shirkadan sheegi doonta shirkadda Spectrum ma maqashay Soomaa Spectrum shirkadda waxa iska laa Bush يعني si aan loo kala qaadin oo dadkan aan adduunka maxkamadaha iyo sharciyada iyo waxa aan loo helin waa in bangiyada iyo shirkadaha iyo dawladaha hal wax noqdaan sadarteed xukuumadii ka horeysay Obama ee Bush dhamaantood hadday noqoto Condoleezza Rice hadday noqoto Dick Cheney hadday kulli waxay ahaayeen dadka ka ganacsada hubka iyo petroolka waxay ganacsataa petrol macnaheedu waa maxay dalkii soo saariyay adaa iska leh shuruudada kula tafaawudaysa adaa qaadanaya waxaan leedahay bangiyadii hay'adihii lacagta oo dhan tusaale ahaan waxaan rabaa inaan soo saaro shirkadda Soomaaliya waxaan u baahanahay 100 bilyan oo dollar baa u baahanahay bangiyada adduunka ee deynta bixinay ana iska leh waan ka soo qaadaya waxaan u baahanahay waxaan sharciyan hay'adihii qaramada midoobay ee adduunka laga sharciyeeyo ana ku joogo dawladii marka saddexdaa wax is dhex galay shirkadaha waaweyn bangiyada iyo dawladaha yaa arintaas la dhahaa waxa ku soo haray shirkadaha isaga goosha adduunka mutacadid al-jinsiyaad multinational company horta maxay yihiin waa shirkado leh nashaadaad ka sameeya dawlado badan oo adduunka ah yani xafiisyo ku leeyihiin hawlgalay ka sameeyaan mashaariic bay ku leeyihiin ama waxaad dhigi kartaa waa shirkado maamula mashaariic munshaad wax soo saara shirkadahaas waxaa ka mid ah Apple oo telefoonka waxaa ka mid ah Nike waxaa ka mid ah Coca-Cola waxaa ka mid ah Amazon waxaa ka mid ah American International Group waxaa ka mid ah Barclays Bank ama Barclays Bank noqoto waxaa ka mid ah Bata shirkadda kabaha samaysa waxaa ka mid ah Fiat waxaa ka mid ah Google waxaa ka mid ah Google iyo wixii la mid ah shirkadahaas waa shirkado adduunka oo dhan ka jira wadan walba ay xafiis ku leeyihiin inta macquulka ah kulligoodna waxay ka shaqeeyaan arrinta hore u soo sheegay maxay yihiin marka shirkadahaas multinational company-ga ah dhibka ay dadka ku hayaan tusaale ahaan waxaan ka soo qaadanaynaa petroolka oo waxa ugu muhiimsan shirkadaha petroolka soo saara haddii shirkadda petroolka soo saaraysa ay tahay shirkad wadani ah oo dalka laga leeyahay qofka wuxuu ka naxayaa marka koobaad deegaanka waxaad ka naxaysaa 2 dadka waxaad ka naxaysaa 3 dhaqanka iyo taariikhda meesha taala intaas markaad isu barbar dhigto ba waxaad go'aan gaaraysaa in waxaan uu yahay wax laga faa'iideysan karo iyo wax laga faa'iideysan karin laakiin shirkad Mareykan ayaa maanta waxay shidaal ka qodaysaa ka soo qaad dhulka Soomaalidu dib waxa xaalufada geedana ma laha dhirna ma laha waxna ma laha laakiin shirkad Soomaali waxay shidaal ka qodaysaa ka soo qaad badamadow oo meelaha maanta ugu qiimeysana qofka dalka iskala markuu fikirayo wuxuu leeyahay meeshaan waa qiimaha kaliya ee dalka ku yaal 2 qaabaadkan iyo qiimahan waxay sameeyaan oksijiinta warshadaha waxay ay qaataan waxyaabaha ay soo daayaan warshadaha
neefta inaga naga baxday ee gubnay wasaqda ah kulli waxaa nidaamiya dhirta Soomaa waxayna siiyaan oxygen maanta markii adduunka la xaalufiyay kaymihii maanta adduunka aragtay waxa laga wada calaalaya in adduunku uu sii kululaanayo dhirtu waxay ka qayb qaadataa hoos u dhiga cadceedda saadarteed markii shirkado adduunka dhan ka shaqeeya ay qaataan oo qaanuun ahaan aad dacway karin oo dhaqaale ahaan aad la tartami karin maxay sameynayaan horta koow waxay la dagaalamayaan dhaqankii meesha yaalay taa waxaa koow ku shirkadda Aramco waa shirkad Sacuudiga ka shaqeysa Sacuudiga wax ka shaqeysa Mareykan magaalada Khubar waxay ku leedahay xarun gudaheeda wax ka dhaca cid og ma laha sababtoo ah waxay faafinayaan cudurro waxay faafinayaan dacaara waxay faafinayaan dhaqan xumo waxay dadka ka bedelayaan diinta thaqaafaadkii maxalliga ah ee meesha joogay way la dagaalamayaan labo waxay baabi'inayaan dhammaan wixii nolol meesha ka jira tusaale ahaan batrool haddii maanta la qodo waxaa dhimanaya dhirtii waxaa dhimanaya xayawaanadii waxaa dhimanaya shimbirihii waxaa dhimanaya kalluunkii waxaa dhimanaya wax kasta oo meesha ku yaala haddii aan laga taxadirin aan laga dadaalin laakiin iyagu ma laha iyagu waxa u cad waxay kula galeen contract 30 sano 40 sano 50 sano kontonkaasna waxay rabaan inay helaan dhaqaale adag oo iyaga ay dib dambe kugu soo noqonaynin marka wax walba waxay u halaagayaan inay iyaga dhaqaalaha helaan okay waxaan soo sheegnay in shirkadaha iyo shakhsiyaadka iyo bangiyada dawladuhu adduunku isdhex gashan yahay oo isku milan yahay oo aan la kala garin tusaale ahaan waxaan rabaa inaan inii sheego wax ka mid ah MBC waa National Broadcasting Company MBC waa shirkad ka mid ah shirkadaha warfaafinta ugu weyn Mareykan yaa iska leh waxa iska leh General Electric General Electric waa shirkad ka shaqeysa dhismaha iyo handasada oo adduunka oo dhan xarumo ku leh wadan walba oo wadamada badanaa uu Mareykanku uu la saxiixday heshiis horumarineed oo jid la dhisay iyo waxaas electronic iyo layer iyo koronto la sameeyay biyo xireen la sameeyay kulli shirkadda koobaad ee Mareykanka qabilsan waxa la General Electric okay MBC waa maxay waa warbaahin Soomaa General Electric waa maxay waa dhismo Soomaa علاقة كده حسوا معي علاقة كده حسوا هو شعب كمريكان كوحالها هو شعبنا الدونك وما نقاول ما نذكره لكن هو شعب أن واحد الدونك كسر أوجين صابته الشعب مريكان كوحول يستاك كليا وربهين تودا أسكله ضد كده كبوبي صادرت وحال ليه ما أنت الصومالي وحقوقنا الشدال الصومالي وما أنت الشدال كم صارن كنا وهذا مساكينة وحاول نسينا شديد وحاول نسمينا كورنت وحاول فرينا بيو شدال كم صارنا قف مريكان وحوليه والله الدولة دي شغال في عم بهزا يا أردك لقاليان نفرية أو ماستر كسرية هي أو يجان وحين دوران وإن الدولة حقوقا عيال العقدين قاطع بنجدوك الدولة مريكان كولا أنا كاجا هي لبا وحقيقية أو شركة دي سوي عليو إن ضد كدين تأيقاتين ولو سبحين كريم مركزتا أو نكا هيتماكا أو عدايو إن دولتنا أي بربور دونتو انهيار كل عدور نقالة بربور نقالة كل عدور ومر والبقوا مشاركيسو وسي كردو وحوليه هي ماشي أوه سيسا لبا كوري أفرتي دينتا لوليه هي الدنيا سدحاد وحي قارتي لبا نبيع 5 تريليون أو دولار waxay ka badan tahay 20 jeer waxay ka badan tahay inta ay reer galbeedku siiyeen tusaalahaan markii lacag aad u baahan lagu deemiyo oo lacagta caddahay in aadan dib u bixin karin waan sheegi doonaa waxay ka faa'iido doonaa Mareykan waan sheegi doonaa waxa lagu siinayaa musaacadaad si aad wad xanaaqay tusaalahaan waa sir xumaysay waa tagtay oo shirbaad gashay Mareykan Soomaaliya adduun Mareykan aadayaan madaxda waxay tirnaa wixii aad sameyseen oo igu adkeysaan way bas waxa uu leeyahay maxaa u baahan tahay waxaan u baahanahay 1 bilyan oo dollar qaado waa taho waa musaacada Mareykanka ku siiba kaalmo dhaqaale asagoo soo qaadanaya wax allaala waxa dalkaaga yaalo dadka hadda Soomaalida la tiriyo nin kasta milyan dollar diinaan lagu leeyahay qof kasta Soomaaliya socda malaayiin diinaan lagu leeyahay laakiin marka xataa tagaan wadamo tagay xogaa la soo siinaya waa la ciyaarsiin wala kala kaleena wala ciyaarsiinaya wadanka markuu wadankii qaato deyntii ودينتي iska bixin waayo Mareykanku maxay ka faa'iideyaan maxay ka rabaan dalkaas ko codayn kasta oo ka dhacaysa qaramada midoobay dalka waa inuu coday Mareykan wadamada Afrika Soomaaliya gacanta iska taaganay walaalka geesi ma carad waxay dhahdaa
أخوك مكروه أخاك لا بطل ولا إنك وضمنا أركيسان قاعد تاجي كام أغلى حمو كام جراد ليتو كام تدلم حمو لكن موقف واهر اللي جاي مال واهر اللي جاي قصوا لا بكرم يوقف كجوجا مركا دين وطن كاغي oo dhan uu deynta la degto oo wadan kaagay la yeesho saddex arrimo Mareykan rabaan koow wax allaala wixii Mareykanka qaramada midoobay oo keeno waa inaad codayso haadir gacanta si taagaysa ma diidi kartid labo waa in Mareykanka oo xarumo military dalka ka sameeysto Mareykanku deyn ku leeyahay deynteedii hadda isii deynteedii حورتك مركز حساس ماركي جرى قفكا مركز لو قفت وعف ودق الدوله استعمالان waxa diinta hadda si walaal diinta hadda ma hayo way u adag tahay hay way xir military base iga sii dalkaaga hay kale deg labaad saddex waxa waaye dalku wuxuu leeyahay ka soo qaad macdan wuxuu leeyahay petrol wuxuu leeyahay xoolo waxaas dalkaaga ka soo baxo oo dhan shirkad aan Mareykan ahayn ma dhoofin karto kama shaqeyn karto kama ganacsan karto هاي وايه maxaa gacanta kugu jira marka codkaaga hadalkaaga dad baa iska leh dalkaaga dad baa iska loo maamulanaya imisa hada ma taqaan xalana xalana ma taqaan xalana Soomaali ma iska leh madaxweynaha Soomaali markuu tagayo waa inuu warqad codsi gudbiyo bilo ka hor hadduu dhan madaxweynaha maanta halaga guuro maxaa leeyahay booliskaaga lacagsiya mushaarkaaga ana bixiya askariga meesha taagan ee furaha wasaaraha iyo afayeenka baarlamaanka iyo madaxweynaha Ugandis baa ina ogtiin kala mooyaan qofka furaha u dambeeyahay qolka madaxweynaha u degan yahay waa askari Ugandis askariga mushaarkiisa siiya Mareykan UN marka madaxweynuhu guur ma dhigi karaa ma dhigi karo waa qaacidada labaad ee Mareykanku lacagtu bixiyo ma dhigi guur ma dhigi karo sababta waa yahay waan guurayaa adiga isdabar hadii lagu dhaho maxaa gacan kugu jira حكم بيجي صدرت مدح الصوماليدو ما أها مدح قفك شخصيا ومحمو لكن وحو كجرا ليقو كجرا قفكي كما بيحكروا وأور اللي قليوا هذا أوفيرس نو والبا مدحوين الصومالية لا فريسو ما قال شيء كيستو نيك لو نعبيه كلو وجعليها ما قال شيء كيست وأنا صومالي في عن أو وناكسن أو حجرنيا أو أقل أو دين أو أخلاق أو صومالي ما له مركو حلكة تكو قفك محبة ليه يا ما واقعي ومركب حكونا ولا رومانسيات حكونا ولا نقول مثالي بيرفكت أو صومالي واحد يوح لقى شيء كي يروح بدني مركب ماشي تقول وحركة واقع عادة قدوة يا دم الواقع يكون عيا قفك مركي حلك كده وحركة أو فريستو دم يقول نقواسي ونكسيه وفي عيه صومالي ما كشكينيا ولا علم كشكينيا وحول عشوا كشكينيا ماشي كرسي وقفل يا أد حب dadka madaxna noo noqday Soomaalida kulli muddo shakhsi liitaan haye halkaas waxa ka muuqda Mareykanku muxuu dawladaha ku qabsadaa dal markuu rabo in Mareykan la wareego muxuu ku qabsadaa Mareykanku koo wuxuu isdaba mariyaa doorashooyinka Venezuela laba nin baa isay Soomaa Mareykanku taageersan yahay nin taageersan yahay laba waa maxay waxa weey waa rashwada waxa weey musuqmaasuq dawladii dhaneed in lacag la siiyo qofkii mabda uu yeelan waayo madaxweynaha in musuqmaasuq saddex tashanaad aan dhaho waa dil dadkii la dilo Saddam Hussein Umar Tarikhos oo Panama Iran kulli يعني قفك وإن الدلو ودمبين وان قاعد دونا وحاول ليه سد حرمه دوي وحلا دريا قرصان اقتصادي هيتمان من كانت شاكيني مدحين ودي وحيرني هو أنا هاوش هذا يقوم صار يصدق كي وح أماها وباهيه ما جرته وحلا دريا CIA وعارض لك عيو نسكب درو لك لو حيو لكن كدل حزب قصادس كان كم وحي ويسعوي عين عادي على دريا صدام حسين صدح صار ريموت ما حصلش إن شركتها سمعنا شيء مريكانك تواتي هورو كلي كحرن تهاي أدون كسر حقيبات مريكان وقف سيها تي هورو إلى سعود عارضنا شيء سمعنا إنهم ميلو وميلو أو أسوق جيان
Venezuela Mexico iyo dawladaha khaliijka Mareykanku waxay ugu talagaleen waa shidaal waa inay ka helaan saa darteed shirkad kale oo halka gasha ama madaxweynihii halka ka mid isbedela waa la dilayaa Saddam Hussein Hugo Chavez ninka hadda jooga meesha jooga dawladahaas Venezuela Mexico khaliijka shidaal bay u qaabilsan yihiin haddii ay shirkad kale ay meesha gasho ama qof kale waxay madaxweynuhu is adkeeyo tagaya Amerika Wasta iyo wadamada Karibiga waxay ka kasaan Mareykanku shaqaale yar hada carabta markay shaqaaleysiinayaan dad waxay ka kasaan Bangladesh Soomaa waa dad aad u raqiisa carabtuna Mareykanku wadamada Karibiga waxay ka kasadaan ay dilcaamilo oo shaqeyso oo lacag ku shaqeysa China waa maxay waxa waxay sameeyaan waa in la geeyo China kaliya maaha waa Hindiya waa wadamada population ka badan leh waa in la geeyo waa ka tan arintan soo hormaray haday dawladda Mareykanku dadka wuxuu kula dhaqmaa saddex in la diro nimankan ka sheekeeyay dhaqaaliyahanka saddex muqaabaraadka in la diro toban dambeysana ciidanaha hadii labada wax laga qaadi waayo oo dalkii isku dhac siyaasadeed laga sameeyay waayo waa in loo diro ciidan taa hore soo sheegnay oo ka sanaacada irhaab sameynta argixisada waxaan joogaa Iraq waxaan ahay dalka ugu shaalka badan waa la qariyaa Sacuudiga ugu shaalka badan waa la qariyaa Iraq ka shaalka badan waxaan ahay dalka ugu taariikhda weyn adduunka mid kamid ah waxaan ahay Iraq waxa la jumjumatul arab baa la maqti naanayst Iraq waa maskaxda Arbeed intaas anoo dalkayga waa la qabsaday waa la duulay waa la dilay waa la dhacay inaan argixisada dad dilo maxaa dhacay marka ninka wuxuu leeyahay dadkan waxay noqonayaan argixiso asaga waa tacbiirka asaga uu sameeyo ma aha in dadkan ay shuuciye iyo ruush taageersan yihiin ma aha dadkan inay yihiin fawdawiin ay yihiin iyo dad aan nidaam iyo dawlad jecleen laakiin ama inay si asal iyo shakhsi ahaan ay u xun yihiin ma aha laakiin bibasada innahum baa'isun qofkii fursad kale ma haysto aan ku noolaadaan waa inaan dagaalamo sababta wax Allah wax khayr Allah waa la qaatay dadkaygu waa la dilay aniga waa la qixiyay aan markaa raaxa ku noolaato wax macna ma sameynayso marka halka waxaan ka soo qaadanayaa markuu Indonesia tagay yaa wuxuu la kulmayaa gabar jaamacad dhigata kulliyadda waxa dhigata adabka suugaanta ma dhaha ay dhigata way sheekaysteen waxay tirniyo waa burburaysan sababta Mareykanku wuxuu rabaa inuu noqdo imbaraatoriyadii ama boqortooyadii adduunka ugu lacagta badnay inuu noqdo rabo Mareykanku soo ku socdo waa sheekay waxay dubaysaan waxay tiri waa maxay sabab laba arrimood oo ku dubaysaan beter waxay tiri markii la sameeyo boqortooyo waa inay leedahay ruux jawhar iimaan waa inay leedahay waxay idinkana waxaad aaminsantihiin maadiyat material bal aaminsantihiin qofka inuu dhaqaale haysto يعني واحد عابدان أما قف كشرفتان أما لا تقديسية ومحي ومادياتك طلبات وقت كبرتين الدوكر واحد أمن سيدنا دقالك كس الدوكر إذيك الذي هم ذكر كوي هذا كتير الله لا أحرم بك الفيريات كبرتين وح إيماني أمن سنين وحيت اللي قبلها مسي جري تطعم مريكك بوقي كقرنت هاي ومن حقرك مني أرجع $1 هذا كشكيني تضبط الناس اللي بنيك وعلى دري سعودية wuxuu Sacuudiga markaan tagay waxaan arkay wiil ari qashin cunay waxay qashinkan muxuu ahaa waxay dhaheen biirniyo ma haysano gaariyada lagu qaado qashinka saa darteed waxyaabaha wasakhda la soo reebo ari baa la keenay arigaas cuna saasi ku baabaan wuxuu markaan aan meesha tagay madaxdii aan la shiray nin kamid ah dadkii baan sii qaaday markaan la hadlay madaxdii shaqadiisu waa maxay waa inuu ku qanciyo inay shaqada Mareykanku shaqeeyaan Somaha asaga wuxuu ku qancay shidaalka la soo saaro shidaalka doolarkan la isku xiro shidaalkan ay inta badan iyagu yeeshaan wixii hal nin oo kamid ah boqortooyadii kamid ah yaa diiday ninka waa sii qaaday Mareykanka geeyay gabar qurux badan moo sii diyaariyay ninkii hawshu qabsaday maalinkii dambe waan u yeeray uu sadkeeyay waxyaabaha ku qabsan waxa kamid ah galmada jinsiga kamid ah ninka wuxuu noqday markii dambe mudmin xiriirniyo waxaan u baahnayaa gabadhii kale ay keentid laakiin ma aha Mareykanka dhaxaysa waxaan rabaa inaan Sacuudiga la aado gabadhii aan u tagay waxay tirniyo gabadh waxa qabay nin ciidan oo Mareykan qaba oo maqan asna uu ogyahay iyadoo shaqaysta asna fi hawliska iska wataa way is ogyihiin laakiin ninka waxa ku haysataa aad ma nin ciidan nin shirkadaha kale ka shaqeeya oo aad u lacag badan marka
oo asagana caalamka sida ku jira laakiin waxa ka faa'iido guud aad u qurux badan degan tahay lacagna waa ka heshaa iyada marka hawlaha kale isaga jirtaa gabadhu waxay tirmaynayo ani intuu Mareykanka joogo shaqada waan sababtoo gabadhu waxay wax u sameynaysaa dalkeeda u adeegaysaa arrinta waa sameyn karaa laakiin Sacuudiga uma raaci karo waan la hadlay wuxuu muhiim ah inay iyada noqoto ex u qaado ay qof dumar oo Mareykan ku qancin karta inay raacdaan u baahan wuxuu ahaa ninka ugu mowqifka adag ee ugu diidmada ugu badan ay naga soo wajahdo markii dambe wuxuu noqday nin ka shaqeeya masaalixda Mareykanka sababtoo ah meesha waa la gaarsiiyay waxay ka hadlayaan Jekor inaad raasaan marjira waa mashruuca waa maxay waa in khayraadka batroolka ku jira Sacuudiga la soo saaro oo soo saaraan shirkadaha Mareykan iyaga oo ictimaadaya lacagta Sacuudiga fiiri waxa la soo saarayaa batroolkaaga waxa soo saaraya shirkadaha Mareykan waxa la dhiganayaa lacagta bangi Mareykan waxa soo lacag ya laga qaadaya Sacuudiga laga qaadaya waxay buu fursad taariikhda Mareykanka mar dambe aan soo mari doonin arrintaas wuxuu yiri markii aan meesha tagnay ee aan aragnay inta uu la egyahay shidaalka iyo batroolka Sacuudiga yaala waxaan isniribu inta aan nool lahay inaanan waa fursad taariikhi ah oo waxaan niri waa sac aan lisan karno ama aan maali karno ila al-abad Sacuudiga okay Sacuudiga lacagtiisa waa la qaatay shirkadda Mareykan qaatay maxaa iyaga loo sameeyay laba arrimood shaqeynaya shirkadda qaadanaysa waa General Electric shirkadda ka shaqeynaysa in dadka raaya caamka la diyaarinna waa NBC waa shirkad Mareykan waxa soo qaatay ABC waxa weeye American Broadcasting Company waxa iska Disney ma taqaanaan Disney World ma taqaanaan waxa waaye waa shirkadda adduunka ugu weyn ee madadaalada iyo warfaafinta iyo caruur iyo ciyaaraha Disney Somaha ABC waxa iska Disney World CBS Colombian Broadcasting System waa iyadana waa warbaahin Somaha waxa iska le Viacom baa iska leh oo ah shirkad mutacaddid jinsiyada waxaan soo yeedhay multinational company oo iyadana warbaahina CNN waxa la Cable News Network waxa iska AOL Time waa shirkad mutacaddid jinsiyada oo adduunka ka shaqeysa marka warbaahintii ganacsigii siyaasadii iyo dhaqaalihii is dhexgalaya hal dad baan iska leh hadda u laabana shirkadaha adduunkan aan maanta ku noolahay ee shirkadaha Mareykanku ay u ah masrax ay ku ciyaaraan garoon ay ku ciyaaraan adduunku saddex wax uu qaybsan yahay dawlado wax lagu sameeyo markii tasniic waa meel wax lagu sameeyo tusaale ahaan waxaan u baahanay hadda inaan maqasheen kala mooyaane Rwanda waxa laga sameeyay xarun gaari lagu sameeyo Soomaa adduunku meel shirkado saddex bay u qaybsan shirkadaha Mareykan meel wadamo iyo gobollo waa meel wax lagu sameeyo gobollana waa meel wixii la soo saaray loo suuq geeyo meel kalena waa wadamo laga soo helo tamarta iyo mawaadda khaamka ah ee warshaduhu u baahan yihiin meel laga keeno waa saddexda kaliya adduunku waa la kala cabirtay saddexdaas mid kastana shirkadaha ka shaqeeya maanta waxa leeyahay halkaas waxa looga baahan yahay gobolka wadankaas in uu noqdo xarun warshadaha oo Mareykan u noqdo warshada la geenayo hebel baa la geenayaa waxaan u baahanahay dalkaas in uu noqdo dal wax allaala wixii la soo saaro dhan China oo kala wax allaala wixii la soo saaro dhan la geeyo China iyo Hindiya Nigeria Masar Brazil waa wadamo population badan leh waa inay noqdaan wadamo la suuq geeyo iyo Afrika iyo Asia wadamada tabarta yar ee khayraadka badan ay noqdaan meel aan wax ka qabno saddexdaas kaliya way Mareykanku ugu qaybsan yahay okay Spectrum halkan kuma jira laakiin waxaan u keenay inaan ogaano maadaama ay tahay shirkadda shidaal ka shaqeysa markii uu haystay ninkii ahaa Bush aabaha markuu haystay ninkan ma aha wiilka ma aha ee ka horeeyay Obama ka horeeyay ninkii Clinton ka horeeyay wiilkiis wuxuu lahaa shirkado shidaal ka shaqeeya shirkadiisa waxa la jiray Arbusta shirkadiisa la jiray shirkadiisii way kacday lacag la'aan bay noqotay si ay u sii shaqeyso waxay la midowday shirkadda la Spectrum 1984
shirkadda Spectrum 84 markii ay nimanka la midoobeen laftigeedii lacag la'aan baa ku sii dhacday waxa 86 la midoob shirkad kale oo la dhaho Harkin Energy Corporation fiirso maanta dhulkeena waxaa shidaal ka qodaysa shirkad 86 kacday oo lacag weedi oo shirkad kale la midoodaya maanta waxa leeyahay dhulka Soomaaliya shidaal ka qodo oo aan lahayn awood dhaqaale Spectrum waata asalkeeda meesha ka soo bilaabatay ana casharka buugay ku jirtay laakiin maxaa kan u keenay inaan ka sheekeyno shirkad uu leeyahay Bush waxaan dib ka sheegi doonaa sababta Ciraaq loogu duuleeyay Venezuela iyo wadamo badan baan ka sheekeyn doonaa iyo Panama iyo Ecuador iyo ka sheekeyn doonaa hadii la waqti aan helo 86 shirkad kacday oo shirkad kale la heshiisay oo aan lahayn awood ay dhaqaale kaga soo saarto bariga batroolka xataa aan lahayn iyo waxaan maanta qarniga 22aad ay Soomaalidu u balansanaysaa in ay acmaaq iyo dib fog batrool ku jira soo saarto oo hadana ku jira badda oo hadana suuq geyso awoodda ma laha iyagu maxay sameeyaan waa dilaal salahan waxay sameeyaan masx geology bay sameeyaan survey waxay soo ogaadeen inta shidaalka aan leenahay oo iyagu inta rabaan ay dhahayaan sababtoo aan aqoon ma haysto aniga Soomaali ah oo geologist ah aqoon aan ku raaco malihi ko awoodan ka shaqeeyo malihi labo aqoon aniga aan kaliya ku shaqeysto malihi dhaqaale aan ku baartay malihi sadarteed marka koobaad iyaga sameeynaya saaminta markay sameeyaan iyaga noo sheegay lambarku iyo shidaalka anagu haysan iyaga noo sheegay inagu waxaan ognahay ma aha waxaan haynaa shidaal Soomaaliyeed oo ah intaasoo kun oo fusto intaasoo kun oo barmiil yani wax iyagu sheegaan ku qasbanahay sababtoo dhaqaalaheedii iyo teknolojiyadii malihi labo marka ay soo saaraan dadka iyaga loo gurgurtumay iyagu waxay sameeyaan waa soo saareen Shell oo kale shirkad weyn oo kale Britain Oil oo kale duu tagay waxay leeyahay halka waxaan ka soo saarnay intaas waxaan rabnaa shirarka qaataan lacagta aan asiisan lacagta laga faa'iideeyo waa maxay waa 300 milyan qiyaastii ay Soomaalidu ka faa'iideeyaan maxay madaxda Soomaaliyeed ay ugu ordayeen hadda in la siiyo shirarka waxay ugu ordeen laba arrimood koow qaanuun qoran maanta hadda aanu xasan liidi booldo xasan oo batroolka Soomaaliya mas'uul ka tahay 300 milyan buu qaadan karaa sababta koow qaanuun qoran oo aniga hadda uu qabanaya ma jiro saddex jiho rasmi ah oo batroolka Soomaalida mas'uul ka ah oo lagala hadlo oo dhoydinka mas'uulka ah barnaamijkaas oo hadii ay xumaaday haduu wanaagsanaado loo xil saarana ma leh tirada meesha ku jirta cid og oo shirkadan beenin kartana mala yani waxa waay wax alla waxa ka soo baxay qof iska qaato wax meel loo raacdo oo looga daba tago malaha okay madaxda maanta waxay ka fikirayaan laba sano ay hartay 300 milyan waxbaad ku qabsan kartaan doorasho ku gali kartaan waxbaad ku qaadan kartaan iska qarxista waa fikirka maanta yaala yani ana markaan saa ka hadlayo mucaarad markaan hadlayo waxaan ka hadlayaa cilmi aan bartay waxaan geologist cilmi aan bartaa ka hadlaya markii la tagay shirkii la tagay London dadkii tagay oo dhan ee Soomaali hal qof oo shaqadiisa ahayd meesha ma tagin tusaale ahaan ana waxaan geologist takhasuskan bartay shaqadaydu waa maxay waa inaan sahmiyo dhulkan geology ma leeyahay batrool iyo malaha Cabdullaahi waa geologist uu jooga markaan soo helo oo dhaanaha dhulkan uu leeyahay batrool intaas ku jirta shaqadeydii way dhamaatay wax shaqo ah oo dambe oo la weydiinayo ma jirto yaa la weydiinaya waxa la weydiinayaa ninka soo bartay qaanuunka macdanta iyo batroolka Soomaali way buuxaan ana inta qaantiro mal aniga waxa la weydiinayaa qofka xuquuqda soo bartay lawyer ah soo bartay balkan waxa la weydiinayaa qof suuq geeyo ah taswiiq marketing ana waxba kama aqaan qofkaas la weydiinayaa dadkii la dhantagay dad suuq ku takhasus suuq geyn kuma jirin dad macdanta iyo batroolka takhasus qaanuunkooda bartay kuma jirin yaa tagay in wasaaradda ka shaqeysa in xafiisyada dawladda ka shaqeysa iyo laba qof saddex qof oo geologist ah kala oo shaqadooda dhamaatay mar horeba shaqo kuma lihinba suuq geyn qof geologist waxba laga weydiinay adi shaqada waxa geologist marka tahay meeshaan shidaal ku jira bis kuma jiro wuu ku jira bas hawshaada way dhamaatay Spectrum oo shirkadaas marka 86 bay shaqeyn weysay innagana maanta waxaan rabnaa iyo saar waxa buuga ciwaanka wartan lacnat al-batrool batroolku mar walba ma aha wax lagu farxo in badan oo kamid adduunka batroolku wax laga naxo tusaale ahaan koow Nigeria firmanta Nigeria waxay leedahay awood batrool oo aad u sareysa xagee maraysaa waxba kama faa'iideyaan sababtoo ah batroolka waa la gadaa shakhsiyaad jeebkood buu kala qofkii faqri ana waa faqri kii hodan ahana waa hodan South Sudan firmanta South Sudan wuxuu ragalbeedku ugu geynay Sudan koonfurta Sudan waxa loogu geynay Sudaanta kale waxay lahaayeen batrool aad u badan
ragalbeedku iyo shirkadaha ragalbeedku waxay ka fikirayeen in ay batroolka qaataan koonfurta Suudaan way go'een shirarkina waxay siiyeen Shiinaha siiyeen maxay faa'iido Mareykan u hayaan waa in la isku diro maanta way isdagaalayaan shuluk iyo nuweer iyo qabiiladii iyo kulli maanta dadkooda wad faqar yihiin innaga Soomaaliya maanta haddaan shirar soo saarano dhaqanka waa isku dilay qabiilka waa isku dilay diintina waa isku dilay haddaan maanta shirar soo saarno ani xaafadda meesha degan shirar laga soo saaro adima igu leedahay igu mili sababta wax qaanuun noo qoran ma jiro waxaan haddii aan fiiri haddii aan wax si qaab cilmiyeysan loo soconin wax faa'iido leh oo aan ka faa'iidin ma jirto salahan xeebtan Kismaayo ku aadan baa laga soo shidaal ma caddo degmada Kismaayo maxay ku leedahay macadda shidaalka Jubbaland maxay ku leedahay macadda shidaalka gobolka Jubbada Hoose muxuu ku leeyahay shidaalka macadda فالسوسايتي maxay taraysaa xama taraysaa okay dawladdu maxay badda shidaal ku jira ay awood u saaraysaa oo kabariga loo saari leeyahay ma garanaysaan kali kabariga cabsi badan baa jirta ma soo saaran karto sababtoo ah iska daa in ururada hubeysan ee dagaalamay waxaas argaxisadii iyo kama hadlayo ee qabiilada ay suubayn karaan marka maanta reerkiina meesha degan shidaal laga soo saaro oo nin kale oo wasiir ama hebel oo xaafadda ahayn oo meesha imaado shidaal ma saaran karaa ma ay xaafadda sababuleysaa sababta wax kala cadeynaya oo dadkaan kala celinaya oo qaanuun oo Soomaali ah oo waxa la isku ogyahay oo waxa la sileeyay ma jirto sadarteed xal waa maxay xalka waxa way koow horta in la sameeyo jiho lagala hadlo wax khayraadka Soomaali lagala hadlo koow labo waa in dadka Soomaalida ay ka wada hadlaan war qaybsashada waxa la tawsiic tharwa in lagala wada hadlo hantida ay dadku leeyihiin si ay u qaybsan lahayn waa in laga hadlo waa in inta ka hor la geliyo wada la xoojiyo nabadgelyada iyo dib u heshiinta Soomaalida waa in la xoojiyo laakiin intay sidan tahay wax Allah waxaan soo saarano wuxuu nagu noqonayaa baan okay waxaan soo sheegnay John inuu ahaa bulcad dhaqaale Soomaali hitman inuu ahaa muhiimadooda waa maxay waa laba arrimood muhiimadda ay leeyihiin in wadan ay tagaan gaar ahaan hawshan waxay buugan xilligu qorayo waxa aad xilliga u kacsanaa laba adduunka maanta wuxuu noqday hal dhinac adduunka hal jiha ma musharax galbeedka waagaas adduunka wuxuu lahaa laba jiho oo Soviet Union iyo reer galbeedka oo maslaxadoodu ay isku wada xirantahay badanaa marka muhiimadiisu waa maxay in uu tago Soomaaliya uu tago madaxweynaha uu la kulmaa ra'iisul wasaaraha oo ka dhaadhiciyo inay u baahan yihiin inay deyn qaataan ugu baahnid dhaqaalaha waa caadi uu fadhiyaa waa in uu ama ha isticmaalo awood ciidan ama awood cabsi ama awood dhaqaale muhiimadda uu ninka qursaan iqtisaadiga ama bulcad dhaqaalaha uu lacagtiisa ku qaadanayo waa in uu dalka dawladahooda uu ku qanciyo inay u baahan yihiin inay deyn qaataan salahan waa inuu dhaho niyahow jidka isku xira Kismaayo iyo Hargeysa burbursan jidka